magacaygu waa Maxamed Fuad Axmed waxaan ahay muuqaal duube ku shaqeysto xirfadiisa. xirfadan waxaa ku soo biiray 2019ka adii hadda waxaa ku jira muddo 3 sano. xirfadan caqabado badan ayaa kala soo kulmay markaan baranayay. waxa ay u darneed horta markaan baranayay 8 saac duhurnimo waxaa arkay aniyo meeshii lagu baranayay u soo lugeynayo. qofka waxa waay hadii uu hami leeyahay hamigiisu kan gaara. marka caqabado badan oo kala way jiraan badan oo ku dhacdo dadka muuqaalada duubo sidoo kale ina qalabkii oo kale aad soo tagtid oo meenaha u badnaaday memory-ga waxyaalo badan oo saas oo kale ayaa igu dhacay. marka way badan yihiin wallahi dadka isku mid ma ahan dad waxa arkaysa marka muuqaal u duubtido kale oo muuqaalkaadi ka helayo dad waxa jiro ku dhahayo muuqaalkan niyo sida rabay iguma duubin. marka dadka isku mid ma ahan. marka ani badana waxa xoog saaraa ina qofkan wanaajiyo si birito wadana mar kale wada shaqeyn dhaxmarto. marka mar walba waxa jecelahay ina si wanaaga ugu shaqeeyo. wallahi qofkii rabo inuu barto xirfadan horta xirfadan ma lahan dhamaad laakiin waxay leedahay bilow. marka hadii maanta niyadaada gelisid ina baratid oo micnaha ka go'anta ina baratid waa baran kartaa. laakiinse maalin walba waxa baranaysaa qaab cusub iyo jawi cusub iyo meel cusub. waxa walba isbedelayaan sidoo kale qalabku isbedelaa. hadda 2010ka wixii wax lagu duubay hadda lagu duubo waxa isku bedelayaan. adii laftirkaada waxa la rabaa mar walba oo wax isbedelaan ina isbedeshid. marka qofkii ay ka go'an tahay inuu barto aniga waxa dhiilay ku soo dhaw xirfadan barshadeeda.